Asalaamu calaykum asxaabe isu soo noqosho wanaagsan halka aad fiidiyogan ka daawanaysiin waa Dr. Xaashi Network. Fiidiyodii waxay noo marayeen waxaan soo daayay fiidiyodii dhowr xanuunka la xiriiray oo ilaa qaybta koowaad, qaybta labaad, saddexaad, afraad, shanaad iyo fiidiyogii su-aalaha iyo jawaabta ahaa. Halkaa iyadoo noo marayda ramadaanka noo soo galay, marka insha Allah waxaan sii wadi doonaa markay ramadaanku dhammaado fiidiyodii ku saabsanaa caafimaadka. Si guud haddaan uga hadlo, caadiyan topographica waxaa loo yaqaano jirka biniaadanka wuxuu ka kooban yahay spineka oo xiriirta ah ilaa qoorta ilaa dabageminta ku tagta. Thoraciska waxaa la yihahdo feeraha iyo sternumka iyo clavicalka laftaan la yihahdo ama galowda iyo sternumka, iyo head oo madaxa ah isagana xanuuno badan ku dhaca madaxa oo ay kamid yihiin vertigo ama dizzinesska waxaa loo yaqaano qofku wareerayo oo u dhacayo oo crystal dhegta dhexdeeda joogta ay ka dhaqaaqayda meesheedii. waxaa kaloo ku dhacda concussion syndrome waxa la yihahdo oo inuu qofku brain shock ama brain injury uu ku dhaco. xanuuno badanaa ku dhaca xanuunada madaxa. cranial nerve damage waxa la yihahda ku dhacdo oo eye drooping iyo isha iyo ay saas noqdaan. way badan yihiin fiidiyadaas waan soo dayi doonaa insha Allah. Extremities waxa la yihahdaa jirta iyaguna oo qaybta kalena waxaa la yihahdaa extremitiska waxaa laga wadaa lugaha iyo gacmaha. gacantu waxay ka bilowdaa anatomical marka laga hadlayo, garabka ka bilaabata ilaa farahay ku dhammaata. garabka haddaan ka bilowno xanuunada ku dhaca waxaa kamida waxaa loo yaqaano frozen shoulder oo inuu qofku uu dhaqaaji waayaba garabka oo intaa ka qaadi waayo frozen shoulder. capsulka iyo macnaha ligamentiyada oo xididada haya frozen noqonayo adkaanaya. waxaa kaloo common oo aada maaragtay ugu dhacda waxaa la yihahda rotator cuff injury ama maaragtay muruqaha afarta oo lafta oo maaragtay ball and socket wey lafta ku celiya garabka ku celiya qaybta kaloo jirka ku dara. mid kamid a ama marmarka qaar teer gaaro u dilaaca ama afartaba ama laba kamida. marka rotator cuff teer loo yaqaana. shoulder impingement waxaa jirta wax la yihahdo xidid laba lafood dhexdood gala oo qofku hadiiba wax yar hadduu qaadmaayo gacantu ay dhacaydo. taasaa kamida ayagana garabka oo xanuunada ku dhaca. haddaan maaragtay si guud aan wax uga sii taabto elbowga hoos markii garabka looga soo dega waxaa lagu imaadaa macnaha elbowga ama kala goyskan maaragtay xuduuda. waxyaalaha ugu caansan oo ku dhaca waxaa kamida lateral epicondylitis waxaa la yihahda xididkaas banaanka oo halkaas qofka aada u xanuunayo tendon oo inflammationka galaya. marka macnaha dadka wuxuuna u badan yahay makaaniga iyo gacnaha wax ka qabto u badan yahay iyo kuwa basketballka ciyaara. hore haddaad ugu soo socoto gacanta inaad ku timaado waxaa ugu caansan xanuunada ku dhaca carpal tunnel syndrome waxa la yihahdo. gacanta halkaas xididada oo maaragtay carbalkaas isku haya aad tayd noqonaya kadibna waxaa waaye qofka gacantaas oo dhan xanuunayda. marka sida loo diagnose gareeyo iyo sida loo daaweeyo waxaasoo dhan fiidiyo kala uga hadlaya hadda si guud aan kugu dul maraya. waxaa kaloo ku dhacda Duchenne syndrome wax la yihahdo oo suulkaas uu qofku dhaqaaji waa xididkaas suulkaas inflammation galaa marka sida umuu dhaqaaji karo. taasna waa waxyaalaha oo gacantan ku dhacay kamid tahay. hoos haddaa usoo degno qoorta haddaan ku laabano weli xiriirtii kamida waxyaalaha ku dhaca waxaa kamid a disc injury sida kuwa dhabarka uga hadlaya inuu diskigu waxyaaba uu soo baxo neerfa taabta. waxaa kamid a xanuunada kaloo ku dhaca waxaa la yihahda degeneration ama rheumatism. waxaa kaloo kamid a xanuunada ku dhaca waxa la yihahdo thoracic outlet syndrome oo meeshaan qoorta ugu hooseyda oo maaragtay neerfayaashu gacanta aada ay maraana ciriiri noqonaysa kadibna neerfa gacanta soo raaca labada gacmood marka qaar soo raacaya isaguna thoracic outlet syndrome la yihahda. hoosdaa ugu sii socono lugtu markii laga hadlayo extremigeeda kamid taha waxayna ka bilaabataa sinta. soo sinta xanuunada ku dhaca waxaa kamid a maaragtay ama hipska waxaa loo yaqaano waxaa kamid a rheumatismada aada u gasha oo maaragtay sida dhabarka si ka daran u gashaa. inflammatory conditionkii dhabarka galayo hore uga soo hadalnoo kale waa ku dhacaan. waxaa kaloo ku dhaca labor and tear waxa la yihahdo oo maaragtay ligamentiyada ama xididada haya oo ku wareegsan qaar kamid aha dilaaca. dislocationa ku dhacda inay meeshii kasoo baxdo ay ku jirto. waxaa kamid a fracture kamid oo ku dhaca oo maaragtay acetabular fracture la yihahdo socketka balka saa u haya meelaha qaar marmarka qaar fracture yar u ka galaa. hoos hadaa ugu socoto jilibka rheumatismada aaday ugu badan tahay. jilbaha aaday ugu badan tahay oo maaragtay jilibka way gashaa. xanuunada kaleo jilibka ku dhaca waxaa kamid a meniscal injury oo ugu caansan oo cingiriga yarka oo jilibka labada jilib lugta qaybta kore oo sinta ka timaada oo fimarka leera iyo qaybta hoose oo tibiyada leera wax yaroo cingiriyo saa u wareegsan oo kala celiyaa jira sida diskiyadii dhabarka kala celayo oo kale kaasaa dilaaca marmarka qaar. marka meniscal injury leera waa aada u xanuun badan yahay. waxaa kaloo kamid a ACL macnaha labada markii saa isu saaran yihiin xidido
midna gudaha ka haya jirta, dhanka gudaha mid dabadda ka haya, mid frontiga soo jeedka ka haya iyo mid gadaal ka haya, ACL iyo MCL iyo PCL iyo waxyaalahaasaa la kala yirahdaa. marka ligamentiyadaas teer ka mid dadka oo sportsiga ciyaaru u badan yahay uu ku dhacaa isaguna, iyo jug baabuur iyo waxyaalahaas ay geysato. marka waxyaalahaasoo dhan hoos hadaa usii socoto lugta hoose aado xanuunada ku dhaca waxaa kamid a oo ugu caansan plantar fasciitis. marka laga gudbo ankle sprainka oo anqowga oo sprain garooba inuu qofku lugta toosgaroy saa u rogmato, ligamentiyadaas banaanka ka haya kuwa kamid a ama kuwa gudaha dependent on dhinacay u rogmato iyaga laftooda dilaaca marmarka qaarna waa sprain garoobaan, saas isuguma juuqsamaan. spraina loo yaqaanaa, markay dilaacana teera loo yaqaano. hoosda uga sii socota cagta xanuunada ugu caansan oo ku dhaca waxaa kamid a plantar fasciitis. plantar fasciitis waxaa la cagta cad meesha hoose oo dhulka ay ka taabataa tayd noqonaysa. marka qofku markuu subaxdii soo kaco cagaha dhulka ma dhigi karo, labada cagood dhulka ma dhigi karo qofku. markuu cabaar xoogaa maalintii socday wax yar roonaanayaan. plantar fasciitis loo yaqaanaa. sida loo tirid garay iyo sida loo ogaado inay tahay iyo waxaas fiidiyadoodan uga hadli doonaa. marka waxyaalaha kaloo ku dhaca iisheeg tarsal sprain wax la yirahdana waa ku dhacaan, iyo neuroma, tarsal neuroma iyo waxyaalahaas, mortens neuroma waxyaalaha loo yaqaano, neerfayaal yaryar oo faraha lugta korkeeda marmaro marmarkaa ciriiriyaa jirta, ayadana waa ku dhacaan. marka si guud xanuunadaas oo dhan jirka biniaadanka waa ku dhaca. macnaa qaybahaas uu kala kooban yahay. mechanical marka laga hadlayo amase MSK musculoskeletal systemka waxa ku dhacana xanuunadaasa ugu caansan. mid walba iskiisu intaasu video u yaala karaa. so waxaan kasoo hadalnay spine, head, extremity, thorax. waxaa kaloo jira visceral organs. waxaa la yidhahdaa visceral organiska maaragtay waxyaalaha anigu aan u badanahay ama taqaqusaadkaygu yahay maaha. visceral organs waxaa la yidhaha uurku jirta. waxaa kamid a keliyaha, waxaa kamid a beerka, waxaa kamid a sambabada, waxaa kamid a spleenka. waxyaalahaasoo dhan waxaa kamid a large intestine iyo small intestines oo anagu caloosha aan u wada naqaano. visceral organis la yidhaha iyagana waa maaragtay kuwaasna iyaguna waa qeybtooda goonida. marka intaas si guud aan maaragtay idinkugu kormaro. jirku intaasoo qaybood ka kooban yahay. xanuunadaasaana ugu caansan. mid walba iskiisaan intaasoo video uga samay doonaa biidnillahi kariim. marka waa ku mahadsantihiin haddaad nala joogteen. haddaad dhinaca facebook aad iga daawanaydiin maaragtay videoga sii share garee, like garee, commentskana ka bixi, iyo wixii qaybteedu waa jeclaaleed in laga hadlo iyo waxyaalahaasoo dhan kasoo bixi. haddaad maaragtay youtube-ka naga daawaydo sidoo kale. inta badanna videoyadeedu waxay kusoo hormaraan oon kusoo daaya. marka ugu horeyda waxaan soo geliyaa youtube-ka, markaa kadib aan facebooka geliyaa, markaas kadib haddana ay tiktok soo gaaraan. Dr. Hashi Network waa leeyahay oo tiktok isaga lafisa waa leeyahay video soo geliya, laakiin qaybaha ugu horeeya soo galaan maahan. waxaa ugu horeeya youtube-ka, kadib facebooka ku xiga. hadba saan waqti u helo markaas kadib aan tiktok aan soo geliyaa. marka isu soo noqosho wanaagsan insha allah. waan qaybihii kaloo aan waxbarashada uga hadlaya videoyadaas iyaguna waa noo soo socdaan. waxay noo mareyday qaybta youtube-ka iyo facebook. haddaad iga xiran tahay waxay noo mareyday qaybtii part 1 oo aan dugsiga sare iyo waxyaalihii iga qabsaday iyo admissionkii jaamacadda iyo waxyaalahaas aan uga hadlayay. marka qaybtii labaada qaybtaas aad sugeynaa. haddaad dhinaca tiktok igala socotana isagana waxa waaye kii oo lasii kala gooyay qaybtii kooda laba loo kala jaro part 1 iyo part 2 aan maraynaa. marka tiktok dhinaciisa part 3 ay sugayaan dadka igala socdaa. laakiin haddaad facebooka, maadaama facebooka iyo youtube-ka ay long format content oo maaragtay 15 daqiiqa 20 daqiiqa xitaa videoyaa uu geli karo, qaybtaas idinku waxaad sugeydin qaybtii labaad. marka waxyaalahaasoo dhan waa isu soo laaban doonaa. khayr badan idin rajeynayaa. marka insha allah idinka videogu waxa waaye waxyaalaha uu idinku leeyahay maxaan ku irahdaa canshuurta videogu waa like inaad saartiin. haddaad like saari weydiin, qofkii saari waayo canshuurtiyaa lagu yaalaa. video dhana laga soo sameynaya markii oo sanad ku dhammaado. intaasuna waa kaftan. waa idin salaamaya. asalaamu calaykum.